السلام عليكم أصحابتا channelkay kusoo dhawaada maanta waxaa rabaa inaan ila qaybsado insha Allah body scrub oo natural insha Allah meeshaan waxaa igu jiro liimadaas waa ujeedin oo lasoo fiiqay lasoo engejiyo oo shiiday waa insha Allah qob kale waaye kan waxa waaye almonds looska almond loo dhaho bariisa igu jiro inta any bariisa isticmaal kartaa hal qaada buuxo oo huruud hadda waxaa isku soo shiidaa insha Allah bariiskan iyo almondka labadan hal mar isku dhex daraa isku soo shiidaa sida powder oo u noqdo insha Allah kadib waa isku soo laabaneynaa hadda waa soo shiiday labadaas xabo markaas had dhalaa meeshaan ay taalo oo yar oo dabool fiican leh sidoo air u galin markaas hadda waa wax yar wixii isku soo dhegdhegay kala fujinooyaa markaas sidaas u qasay and then kadib liimadii ku darooyaa qobka liimada oo la soo shiiday waaye markaas si fiican isku qasooyaa insha Allah kadib huruudkii ku daraa inuu iswada gaaraa la rabaa kulli si fiican loo qaso xagga oil iyo waxa ii taalo caano yar asina insha Allah waxa ku subinayo waa arkeysiin because intaan waa hadda dry ingredient waaye marka malisku wax oo fajaq ku daray hadii kale falanjeer inaa la geliyo noqonay kan had falanjeer ma u baahno insha Allah inta marka isku dartid laakiin hadda marka isticmaalaysid hal qaad laba qaad oo waxa rabtaa ka baxsanay insha Allah hadda wax yaraan ii tusaya sida uu isticmaalo hadda body dhan marinaysid ama gacmaha bas marinaysid qiyaasta rabtaa ka soo baxsanay hadda waxaa ku darooyaa almond oil hal qaad ku daray ujeedin ama coconut oil ma isticmaal kartaa iyo hal qaad oo caano akaas waa isku qasay ilaa oo kareemka noqdo waa sidaan isku qasay insha Allah hadda sida u marsanayni tusaa insha Allah body dhan si fiican loo mariyaa waxa yeelay bathtub-ka gale and then biyo ma ku furaysid waa la fadhiistaa korka dhan la iska gurugaa oo hadaa rabtid gacmaha bas hadaa rabtid jilbaha hadaa rabtid garbaha meesha rabtid dhan marsan kartaa qoorta ilaa wixii ka hooseeya dhan lugaha maasha Allah asina cad nadiif oo ka dhigaa wasakh dhan korka dhan smooth oo ka dhigaa waa yaabee scrubkan most waxa jeclahay qabobka markoo jiro because skinka dry noqona qabob markoo jiro so kan wuxuu ka dhigaa moist nadiif wax oo aroosada camal kan loo mariyo camal oo kamid yahay kan marka aroos leh ma loogu talagalin so halkaas cawal ma la rabo mar walba la iska marsadaa waxaan oo time u haysid insha Allah waa la marsadaa marka scrubka oo uu jeclahay kamid yahay oo markii oo u baahdo kana suubsadaa natural way jirkan marka haleenayo korka dhan gacanta korka dhan baby skin camal oo noqona soft masha Allah wasaqada jirka wax dhan oo ka soo baxaa waxyaalo la arkeenna jira even though oo qabaysanaysid oo la arkeenna jiro marka bini aadanka korkooda jiro so waxaas dhan oo ka soo dhaqaa masha Allah liimada way u fiican tahay bariiskana waxa ku jiro wax oo skinka bright ka dhigayo iyo liimada sidoo kale insha Allah marka waa kaas
hadda waan itusoo yaale insha allah waa ujeedaa nadiifka oo kusoo baxay smooth. haddaa aragtid waa yaabee maasha allah. gacantaas iyo kan isku hal ma aha, hadda kan raaf camal waa waxyar, kan laakiin soft waaye maasha allah. waxyar iftiinkan igu tusooya hadda waa kan sida u aragtiin insha allah. waa kaas scrub kale oo rabo inaan la share gareeyo waa kan insha allah, oo aad u jeclahay isina, oo cinnamon iyo sugar laga suubiyey iyo malab, liimo iyo almond oil ku daraa isina maasha allah. midkan laakiin falanjeero u baahanaa markaa la marsanayo oo la suubiyo. asina waa daawo jirka u tahay, wejiga nabraha markoo kasoo baxo insha allah. wax walba u isticmaali kartaa midkan. qalfaha laakiin dad oo dhibaya jiro qalfo hadduu ku dhibaayo ku darsanin, iska dhaaf kan insha allah. brown sugarki waxaa isticmaal kartaa malabka bes. hadda caafimaad fiicanaa marsanaya maasha allah. malab aad u fiican waaye, aada uga helay. shaahiga ku darsadaa, skinka waxyaalahan isticmaalayo ku darooyaa maasha allah, aada uga helay. caafimaad fiican daadkamaa ka helaysiin. almond oil ku darooyaa. noocan waxaa ku darooyaa kale jab liime bes. hadda ujeedaa sokortiya xagga isku daray iyo qalfadii. kadib waxyara isku qasaa sidaan. markaas waxaa ku daraa hal qaando iyo waxyar oo malabka insha allah. malabka waaba dhamaana waa ogahay hadda. waxyaraas oo herooyo insha allah. online-ka ka dalbana insha allah. caafimaad fiicanaaba ka helaysiin. almond oil ku daray hal qaado asine, iyo half lemon ku darooyaa. lemonka waxaa ugu darooyaa sida uu halaawin alaabta, ma halaawayo markii liimo lagu daro. waxay u tahay preservative wax la dhahayo, oo markii oo wax meel dhigaysta camal sida uu halaawin. skinkan wuu cadeynaa at the same time. wixii ku dartidna ma halaawayo liimada. so waaka intaan soo jilcay sida la rabi waaye, kareem camal oo noqonaa. sina meelaha jeexjeexa camal, stretch marks, wejiga nabraha oo marka oo madow noqdo camal, waxaas dhan u fiican yahay kan. gacmaha la marsadaa sometime aan gacmaha kaligiisa marsadaa kan markii oo waqtigan asina qaqabobka lagu jiro isticmaala uu jeclahay. sidoo gacmahayga iyo lugaha camal soft sidoo igu ahaado smooth. kana jeclaa inaan isticmaalo insha allah. like I said, daawana way u tahay wejiga markuu nabro ku yaalo iyo waxaas dhan insha allah. waa kaasina sidaana u marinaa. sokoraa ku jiro kan, soo tartiib waa la rabaa inaa loogu mariyo, xoog ma la rabo, tartiib. sidaan hadda u marinayo camal. scrub oo wax ma la rabo oo meesha dhan gaduud kusoo baxayo ma la rabo, tartiibkaada loo mariyaa. waa lagu dhaafaa at least 5 minutes camal. wejiga ahaado, korka ahaado, meesha harto marsan kartaa maasha allah. waa kaas waa mari hadda at least 5 minutes camal sugaa. waa kasoo dhaqaa markaas insha allah. waa kasoo dhaqay oo ujeediin sidoo kusoo baxay maasha allah. labada isku hal ma xagga ma ogi waxa ii gaaray. so waa kana smooth kana kusoo baxay maasha allah. nadiif, gacmaha dhan wuxuu ku ahaana qurux, soft. kabacdi lotionkaada marsanay any lotion oo jeceshahay, oo hand lotion. markaas waa kaas insha allah. I hope inaa ka faa'iidaysateen insha allah. haddaa channelkayga ku cusub tahay please subscribe ka riix.
gambaleelkana taabo sida videoyaalka kale u aragtid